السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaal meel kasta aad joogtaan halkani waa channelkeeni Garatiin fadlan daawada dadka cusub taa channelkan subscribe kale dad kamid tahay asxaabta ku xidhana fadlan nagu caawi like si uu videogani u gaaro asxaabta kale oo aan viewers badan u helno dabcan daawade videogani wuxuu noqon doonaa casharkeeni taxanaha ee aad naga sugeyseen ee HTML asxaab badan ayaa la soo hadashay oo igu tiri casharka dhame waan idinka raali gelinayaa sababo badan awgeed maxaa yeelay mashquul ayaan yara noqday waana jeclahay inaan degdeg ku dhameeyo sida ugu dhaqsiya badan markaan dhameeyana CSS ka ayaan gali doonaa projectyadan soo bandhigi doonaa Java ka bilaawi doonaa wixii baan isku wala xidhi doonaa aad ayaan idinka raali gelinayaa anigu idin joogaa mar kasta waxaan hadda gudagali doonaa casharkeena ku xigay casharkii maalintii dhawaan dhigay oo ahaa hidden ayaan jeedaa hiddenka waxaan ku xigi doonaa oo inagu xigi doonaa paragraph inaan fahanno way silsilada ayaan ku dhigi doonaa ilaa aan ka gaarino halka ugu dambaysa ee aan ka gaari karno waxyaabahan hiigsanayno sida awgeed coderkii aan hore u soo dhigay ku noqon maayo coderka inagu cusub ee maanta paragraphka iyo outputkiisa anagoo inputkiisana gelin doonaa outputkiisana eegi doonaa sidoo kale san hore idinku sheegay waxaan adeegsanayaa Notepad++ final project kana iyo projectyada kale ee yar aan soo gudbin doono sida ugu dhaqsiyaha badan markaan meel wanaagsan gaadhno waxaan ku soo bandhigi doonaa aan adeegsan doonaa editor kale si aad editoradan aad u fahantaan marka waxaan qori doonaa sidii caadiga ah yahay doctype intaanan qorin waxaan idin yiri markasta waxa ay ku wanaagsan inaad faylkaaga aad save garaysato marka faylkan iska save garaysan doonaa faylka markaan save garaysanayso san hore idinku sheegay meesha doonta ayaad dhigan doontaa laakiin waxa muhiim ah inaad ka tagin extensionka marka casharka maanta dhigan doonaa waa paragraph br baan iska oran doonaa waan soo gaabsan doonaa dot markasta extensionku wax kala maaha waa .html ka aad arkayso so loo garto inuu faylkan uu yahay html inta ayaan taaban doonaa kulli baad arkaysaa waxba iska bedelay oo already magacu adiga arkaya halkaas waa ber oo paragraph aan soo gaabiyay .html inta waxa ku xigta waxaan qoran doonaa html waxaan dhisi doonaa codekayga oo complete ah anigoo mid kasta raacin doonaa closing tagskiisa iyo opening tagskiisa maxaa yeelay san hore idinku soo dhigay waa muhiim oo wax laga tagi kara maaha saad arkaysa imka labadana way isku xidhan yihiin fadlan daawada dad u baahan tahay inaad aad u fahanto casharaanta ka horeeyay oo aan ku soo dhigi doono description-ka sidoo kale haddaad gasho meesheeda igu kaydsan videoyadeeda waad ka heli doontaa taxanaha aniga uu sameeyay numbers marka HTML opening tagskiisa iyo closing tagskiisa waa kan sidoo kale waxaan u baahanahay inaan qorno head markaan qorno opening tagskiisa weeye kaasi kana waa closing tagskiisa marka waan iga qoray oo inta ayaan sii doonaa inta u dhaxaysana wax baan ku qoran doonaa method ayaan ku qoran doonaa marka method ayaan qori doonaa method markaan qoray waxaan u baahanahay inaan qoro char set already wax kasta waa ii diyaar waxaan u baahanahay inaan fahmo oo kaliya ta oo library-ga codekan library-ga Notepad+ ayaa already garanaya coderkaad u baahan tahay markaad aad fahansan tahay wixii UTF-8 minus UTF minus 8 baan la oranayay markaad tiraahdo waad soo xidhanaysaa markaad soo xidhato sidaas ayaad kaga gudbi kartaa laakiin intaa ka hor markasta waxaad u baahan tahay inaad koodkaaga adeegto si aad u ogaato inuu saxsan yahay iyo in kale halkan aad arkayso method ayaan qornay markaan qornay method waxaan qornay char set oo character marka char set markaad qortay equal ayaan niri UTF minus 8 ayaan qornay marka inta ayaad taaban doontaa title-kii ayaan u baahanahay title-kii waxaan ku soo dhigay haddaad u baahan tahay inaad fahanto casharaantii hore title-ku wuxuu yahay iyo waxyaabuhu inoo tari doono marka title ayaad qoran doontaa already waa inoo diyaar adiga arkaya intan baad taaban doontaa title haddaad doonaysa inaad fahantaan imka waan idiin raacin doonaa si guud mara marka hore waan qori doonaa inputkiisa saa aad arkayso ayaa loo qoraya hagan closing tag baa ka maqan closing tagga raaci markasta title-ka marka waxaan oran karnaa waxaan maanta dhiganaynaa paragraph aan maanta dhigan doonaa marka title-keenu paragraph ayuu noqon doonaa title-ka oo halkeed ka soo bixi doonta waxaan idin tusi doonaa markaan output-ka
aan eegi doono oo outputka wax kala maahay waxa inoo soo bixi doona imika waxbaan gelinaynaa oo aan qoraynaa marka dambena waxaan aan qorayno ayaan u baahanay inaan browser aan ku eegno marka waxaan imika aan soo xidho doonaa hiirka inoo furan aad arkayso aniga closing tagiskiisa qoraya markaan qoro saad arkaysa waan qoray haddaba intani waa intii aan soo dhiganay casharaantii hore ayaad aad uga fahmi doontaa iyagoo faahfaahsan imika waan dul marayo laakiin imika waxaan dooni doonaa inaan isla eegno paragrapho body ayaan qori doonaa body markaan qoro closing tagiskiisa waan qori doonaa sidoo kale waan soo xidhan doonaa markaan qoro waxaan u baahanahay inaan imika paragraphkii aan aad u fahmo intaan paragraphkaanan fahmin heading yar ayaan samaysan doonaa isagana waan horan usoo dhiganay headingka si aad u fahanto waxaad u baahan tahay inaad casharaantii hore aan descriptionka kuusoo dhigi doono inaad fahanto marka headingkan ka socono headingka markaan qorano waxaan iska oran doonaa head 1 baan iska oran doonaa oo ah headkeena 1 koobaad si aan u aragno isaga laftigiisa outputkiisa soo noqon doono marka inta markaan qorano inta ayaan iska oran doonaa paragraph keeni baan iska qoran doonaa paragraph marka doonaysa inaad qorato b baa ugu horeeya oo soo gaabsan paragraph waxaan oran doonaa this is my first paragraph waad oran doontaa this is my first paragraph this is my first paragraph this is my first paragraph waad oran doontaa closing tag ayuu leeyahay closing tagga markaad qorto bd ayaad qoran doontaa bd markaad qorto dabcan waad soo xidhi doontaa markaad soo xidho waxaan eegi doonaa oo kale aan qoran doonaa paragraph kale waxaan qoran doonaa paragraph kale si aan u eegno labada paragraph sidii u noqonayaan shakladooda marka waxaan oran doonaa this is my second paragraph this is my second paragraph saan arkayno imika koodhkiina waa inoo dhammaystiran yahay oo haddaad arkayso html-ku si toos ayuu halkaa sare ugu xidhan yahay laakiin waxaan u baahanahay inuu koodhkeenu inoo dhammaystirmo maxaa yeelay cilad baa ku jirta marka hiidhka xagga inoo yaala ee aanu keennay inuu halkan yimaada maaha maxaa yeelay midabkan aad arkaysana casaanka inoo soo baxay si toosa wuxuu xidhayaa hiidhkan marka hiidhkani wuxuu xidhmanayaa oo u baahan yahay halkaa bodiga inoo yaalo ayuu waxa weeye inuu tago sidaad arkaysa markaan ka qaaday si toosa ayay labadaas iskugu xidhmanayaan haylaadku raacsan yahay marka hiidhkan aad arkayso wuxuu mid ku dheeraad ah ayuu ahaa oo koodhku saasuu ku hagaagsay bodigiina waa adigan arkaa hiidhkana waa kan isaguna halkana ka furmanaya halkana ka xidhmanaya marka imika saasaan ku haysanaa already inputkii oo sheekadii halkan way ka dhamaatay waxaan arki doonaa qaabka uu inagu soo bixi doono folderkeenana waxaan u baxnay bar oo paragraph usoo gaabsan .html marka meelahan aan ka eegi doonaa waa ka xagga inoo soo dhigay dabcan waan taaban doonaa outputkan eegi doonaa sidaad arkayso halkan head1 waa fartii waxaan ku qornay sizekii koobaad oo head1 ah kana waa paragraph kini koowaad this is my first paragraph kan ku qorinay kana this is my second paragraph or this my second paragraph is kuma jirto marka waxaan eegi doonaa aan isku eegi doonaa si aad u fakirto aad maskaxdaada aad waxaan aad ugu eegto aanad wax weyn kugu noqon waa sidan kani waxa weeye halkan waxaad ku qoraysay waa kan outputkiisii kan kalena head1kii waa kan kana waa paragraphkii koobaad kana waa paragraphkii koobaad haddaan doonayo inaan wax ku daro oon ka ilaawiyo waxaan oran karaa this is adiga arkaya is baan ku daray halkan kalena is baan kaga daraya waan save garaynaya markaan save garayo halkan aan imanaya waan refresh garaynaya titlekii aan idin sheegayna waa ka halka ka soo baxay aan idin lahaa casharada hore ayaan ku dhiganay oo halkanna in yar baan idin dulmari doonaa oo idin tusi doonaa laakiin haddaad doonayso inaad aad usii barta casharaantii hore fadlan aad u daawo si aad u fahanto fundamentalska oo dhan oo runtii aad ku anfacaya waayo luqad kasta la baranayo syntaxkeeda iyo ruleskeeda ayaa muhiim ah inaad barato intaanad guda gelin maxaa yeelay haddaad maanta doonayso in meel lagu tilmaamo tilmaamtii oo map caadi ah ayaad qaadanaysaa si aad ugu hawlgasho oo aad destinationka doonayso aad gaadho aad u gaadho tanna waa saas oo kale luqad kasta oo lagu hadlo adduunka waxay leedahay grammar luqadan
waxaan aad baranaysaa imika ama waxyaabaha aad baranaysana waxay leeyihiin qaab loo dejiyay qaabkana inaad raacdo ayaa muhiim ah oo aad wax kasta qaabkeeda aad barato markaas aasaan isku ognahay sida awgeed waxaan doonayaa inaan intaa aan idinku daro casharaan wax casharaan nagu noqon lahaa laakiin aan idiin soo koobayo si aan uga gudubno oo pressure badan aan naga soo gaarin anigoo TF faahfaahsan idiin dhigi doona haddaad doonayso qoraalkaagan inaad wax badan ku darto kaba soo qaada tan this is aad ka dhigato lead aad u samayso underline sida wordka markaad isticmaalayso aad u hagaajisato qoraalada underline aad qaar color aad uga dhigato qaar aad ma garanaysaa emphasize aad ka dhigato oo qoraalku inuu jiibsado waxyaabo noocaas oo kale ayaan idin doonaa dhowr kooda imika tan oo kale waxaan ka dhigi doonaa oo aan doonaynaa inaan underline lead ma garanaysaa qoraalkaasi noo raaco si aan u ogaano leadka si aad u qortay leadkaas waxaad u baahan tahay inaad u aad qorato oo u soo gaabsan underline marka u-da markaad qorato waad save garaysan doontaa saad arkayso halkana waan ka furay halkana waan ka xidhay intaas oo kaliya ayaa inoo soo bixi doontaa marka imkaan eegi doonaa saad arkayso this is my ayaa underline kaliya raacsan laakiin paragraph ma raacsana paragraphna waxaan doonaynaa inay fartu aad ay u noqoto bold colorkeedu isbedelo iyada laftigeedana waxaan oran doonaa strong markaad tiraahdo waxaad u baahan tahay inaad iyadana closing tagskeeda aad iyadana iska saxdo markasta haddii kalena wuxuu saameynayaa koodhka oo dhammaystiran marka iyadana waad arkaysaa midabkeedu waa isbedelay tan underline baa raacay haddaad doonayso inaad emphasize aad ku samayso paragraphka labaad baan ku samayn doonaa emphasize qaybtiisa hore markaan ku sameeyo waxaan doonayaa inaan cabir aan ka qaato oo ilaa this is my halka ay ku joogto aan emphasize aan jiifiyo marka waxaan oran doonaa emphasize marka waxbaan halkaa idinka tusi doonaa khalad yar khaladka markaan tuso si aad wax ugu fahantaan sad arkayso waxaan markii hore idin lahaa ilaa intaasaan doonaya inaad jiifsato laakiin qoraalkii oo dhani waa jiifsaday problemkaas waxaa keeni kara markasta si aad cilada anigu inaan wax kuu dhigo oo kaliya tan ma doonayo laakiin waxaan doonaya ilaa ciladahan ku baro marka cilada dhan aad arkaysa saameeyay koodhkaas oo dhan waxa weeye wax kala maaha ma laha closing tag oo qiimaha closing tag aan ku sheegaya laakiin waxaan halkan amar aan ka siinay si toos ah inuu intaas inoo emphasize gareeyo marka halkan aan u samayn doonaa closing tag oo slash aan ku soo xidhi doonaa dib baan u save gareyn doonaa projectka markaan save gareeyo saas way nagu soo bixi doonaa oo imika intaas baa jiifto waad arkaysaa laakiin intani ma jiifto marka casharkeenu intaas maanta ku joogi doonaa sidoo kale casharaanta step by step baan u socon doonaan fadlan nagu caawi like una share garaa asxaabta u baahan kooraskan si aan anaguna aan ugu dhiirano oo aan aad iyo aad idinku soo badino casharaanta maxaa yeelay idinka ayuunbaa motivation na siin karaa si aanu meel kasta aan u gaadhno oo aan magaranaysa wax kastana idiin soo bandhigno fadlan inaga caawiya like-ta una share gareeya asxaabta videoga markastoo aad furtana like inagu caawi maxaa yeelay algoritmta ayaa dadka u soo bandhigaysa markasta videoga si ay u daawadaan aniguna viewers badan aan u hanno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu